amiirkii watay markaa muslimiinta ninkii madaxda u ahaa waa sida riwaayad kale ay tilmaamayso waa mahdigiyo muslimiintii wata ayaa ciise u iimaanaya oo samada ka soo degaya nabi ciise calayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam markaas wuxuu leeyahay salli bina natujibu leh ciise la dhahay natuji salaada inaga saar markaas wuxuu leeyahay la maya idma tujinayo waxa yeelay inna ba'dakum ala ba'din umara ummadii nabi maxamed maadaama aatiin idinka madax isu ah takrimat allahi hadhihi al-umma wa karamayn ilahi ummadda nabigiisa maxamed uu karaameeyay maadaama idinku aad madax isu tihiin ina tujibu leeyahay anigu idin tujin maaye halkaasuu nabi ciise marka ku daba tukan doonaa salaada uu mahdigu muslimiinta hogaaminaya imaamka u yahay xiliyadooduna waa xiliye isku dhaw taqriiban isla xiliyadaasuu nabi ciisena ku soo beegmi doonaa sidaan ugu tagi doono insha Allah ta'ala ka warami doono mahdiga marka xaaladiisu waa nin caadi ah oo tilmaamo leh oo abtirka leh oo xilli noocaasa iimaan doona oo adduunka isbedel badan ku sameyn doona oo muslimiinta wax fara badan oo khayr ilaahay gacantiisa ugu xaqiijin doono mahdigaasi imaanshihiisu waa calaamaadka ugu horeeya oo ku tusaya qiyaamada inay soo dhawaatay calaamaadkeeda waaweyn ka mid ah axaadiista mahdiga ku soo aroortay quraanka kuma sugna mahdiga qisadiisu quraanku ma sheegin laakiin axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu ku sugan yahay axaadiista mahdiga ku soo aroortay culimada qaar ka mid ah waxay isku dayeen inay inkiraan mahdiga iyo jiritaankiisa iyo imaanshihiisa axaadiistana waxay yiraahdeen mar waxay dhaheen waa axaadiis daciif oo sugnayn marna waxay tilmaameen waa axaadiisul aahad bay dhaheen oo looma xujaysan karo abwaabda aqaaid iyo wixii la mid ah fikirkii mu'tazilada lagu aqoon jiray laakiin warkaas oo dhan wax jira ma aha axaadiista mahdiga inuu jiro oo imaanaya ku saabsani waa axaadiis mutawaatir ah axaadiis mutawaatir ah way culimo fara badan baa sheegtay inay mutawaatir yahay mesela waxa kamid ah culimada tilmaantay الحافظ أبو الحسن السجستاني وعلماء قرني أفراد أها وحكم محمد البرزنجي وعلماء قرني كويتمناد أها محمد السفاريني إنك عنك السجنة علماء قرني لبيتمناد بو أها محمد بن علي الشوكاني صديق حسن خان محمد جعفر الكتاني علماء صورنبات المامي أحاديث كسو أرور مهديجو إني متواتر كواحد لهذا وأحاديث تشريتان كذا عن شكل الجلين كريمة أو يقين الله هو تأسيد أصدرات مهديجو واحد شراء وأنا علامة وين أو صوص عتا سيد أصدرات واحد على مرر فربضان واحد على ضد بدن مهديج الشيكتي مهدي معنا يا أدون كصومري ضد بدن إسكر الشيكتي بعد شراء شيء وهدو يا شيء إيمان دونا ضد إسكر الشيكتي سان سو شيغنay ba dad badan oo nabinimo sheegtay ba jirta ayadoo nabigu uu yiri wax nabiyo iga dambaysan ma jiro ayaa hadana dad badan nabinimo sheegteen hatta dumar sheegtay baan soo sheegnay hatta dumar ba sheegtay mahdigana dad badan ba sheegtay taariikhda dheer muxuu ahaa 1400 iyo ziyaadada intaas oo nin ba soo maray oo nin walba yiri ana mahdigiya laakiin mahdigu ma qarsoona ismana qariyo wax la sheegan karana ma aha xilliga uu iimaanayna nabigu waa tilmaamay sallallahu alayhi wasallam hatta nabigu wuxuu tilmaamay calaamaadka uu leeyahay jirkiisa iyo siduu u egyahay wajigiisa sankiisa qaabkiisa nabigu waa tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taasi marka waxa weeye waa calaamada koobaad oo calaamooyinka waaweyn kamida calaamada labaad waxa weeye waa dhuhurul masiih ad-dajjal masiih ad-dajjal ninka la yiraahdo isagana soo bixidiisa waa inuu soo muuqdo soo baxo oo isagana adduunka u soo baxo masiih ad-dajjal muxuu ahaa isagana masiih ad-dajjal ku waxa weeye waa nin kamida aadam caruurtiisii kamida masiih ad-dajjal aadam baa dhalay waana bini aadan inagoo kala away laakiin waa nin tilmaamo leh nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu yahay nin aad u lafweyn khalqi aad u xoog badan oo lafweyn oo midabkiisu uu yahay casaan oo timihiisu adag yihiin oo isha midigta ah cawaran isha midigta waa tiran waa laay il soo taagan oo haddana aan waxba uusan ku arkaynin waa
tilmaamo badan oo noocaas uu nabigu ka bixiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kama fi hadithi ibn umar fi sahihayn ninkaasi imaanshihiisa waa nin gaal ah shar badanna adduunka keeni doona shar aad u fara badan ayuu adduunka keeni doona ilaahnimu sheegan doona adduun badan baana raaci doona rumaysan doona inuu ilaahay yahay nabigu waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri nabi ilaahay soo diray ma jiro ilaa haddii ilaahay nabi soo diro ninka dajaal la yiraahdo ummadiisa uu uga digi jiray anbiyadii iyo rasuusha ilaahay soo diro dhan nabi walba ummadiisa wuxuu kala dardaarmi jiray iska jira ninka la yiraahdo masiix dajaal iska ilaaliya nabiguna sallallahu alayhi wasallam aad buu uga hadlay digniin badan buu ka bixiyay tilmaamo badan buu ka bixiyay maxaa yeelay ummadiisu waxay noqotay ummad xilligeeda ilaahay qadaray inuu noqdo xilliga masiix dajaal uu imaanayo imaanshihiisu marka waa halis bal nabigu wuxuu ka cabiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri fa sharru ghaa'ibin yuntadhar wax maqan oo la sugayo oo soo socda oo masiix dajaal ka shar badan ma jiro saas daraadeed markaan salaada tukanayno afarta shay ee markaan ataxiyaadka iyo salliga dhamayno afarta shay ee ilaahay ka magan gal waxa kamida wa min fitnatil masiix dajaal يعني النار يا عذاب القبر يا نلوش فتنة ده هي فتنة مسيح الدجال مركن وهاليس واي حلقي سريحي إله النلول كو قارسيو وخطر دينتي سئيو محوءها عقيدة دي سئيو خطر بوغل يا روحي إيمان لها وحا النبي صلى الله عليه وسلم إن أهيري محوءها علامات كاللغو قرنا يوحا كم إذا ننكا إساقا labadiisa indhood dhexdooda waxa ku qoran kaafir ba ku qoran ama kafara gaal ba ku qoran ruux kasta uu akhrin kara waliba kafara oo isku taalameehe kaaf iyo fa iyo ra oo kala googo'an oo ruux kasta uu akhrin karo baa labada indhood dhexdooda kaga qoran calaamad lagu garan waa isha midigtaana waa la yahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam rabbigin yuusan idin kaga khaldamin ninkaasi ilaahnimada sheeganaya ilaaha uu ictiraafina hana moodina inuu ilaah yahay wax kale oo dhan haduu idin ka qarsoomo waxaan idin ka qarsoomaynin allah aad caabudaani ma indhala allah illa ma jiro in rabbakum laysa bi'awar mid illa ma aha البهدو لا يهي إله من نقول كروح حايل أديك إله لماذا شجنيسي أودات شجنيسو ما أديش هذا كوها جاي ستة دواء سامع وريه إله لماذا عاد شجنيسو فول حمادا كام وقت ما أديش هجاي ست أدوك بركة واحد كلار من هدو كاقر صوم وحن كاقر صومين نين إلا إله كومها أنت هسال إذا كاقر صومين بنبي صلوات ربي وسلام عليه علامات كلو جرم بكم تهاي استامها النبي وكل شيء علاماتك وكل شيء وحا كمذا أبورك سؤال بو ويهيبور حديثك في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال بنبي صلى الله عليه وسلم آدم أبو رستيس إلى قيامه أنت كرد عيسو خلق الدجال كوين إلهي ما أبو بنبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد لقوضا أبورك ابن آدمك ابن آدم الله أبوره أو كوين أو كتشر وين ما تشرو حق له أو آد وين أو دير والنبي كنت المامي صلوات ربي والسلام عليه نكاي سجأ تلمامها النبي كبحي وحا كمد الله مرنا له وأمد ليس علامات كيسي كمد ساس دراد نين المله دجال معه دجال معه قل يا وحي لهنا واجي دويده مسلمين تقواب أودي بمحوها هاي بوش أودي بوش ودجال بينهم ور بوش دجال ما بوش هو ضليه نين ضليه دجال ما نقضه علامات كمرك اللو جرم بيكم تهاي روح واحد ضليه سيدي سبوا المر ضليه دجال ما دجال وما ضليس سيد النبي وكل شيء صلوات ربي والسلام عليه قصة شرط عجيب وفي صحيح البخاري كتمت
wiil yaro waxaa jira yahuudi dhalashadiisu oo la dhihi jiray ibnu sayaad wiilka yarka wuxuu ahaa wiil yaro cajab badanoo dadkan hadla ee wax sheeg ee jinka la shaqaysta ee waxyaalo la yaab leh ka muuqdaan oo khawaariqi wax ka muuqdaan buu ahaan jiray